ninkii soo bandhigi jiray muuqaalada naago qoorta marka laga salaaxo qaylinaya dareen dartiis oo xabsiga la dhigay. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa xabsiga dhigay wiil dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inuu faafiyay muuqaalo anshaxumo ah. Qoraal ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in laga qabtay degmada Hodan shaqsigani, waxaana qoraalka lagu yiri ciidanka booliiska gobolka Banaadir gaar ahaan saldhigga booliiska degmada Hodan ayaa soo xiray eedeysane lagu magacaabo Asmar Daahir Farax 23 sano jir ah kuna eedeysan inuu ku kacay falal anshax darro oo ka soo horjeeda diinteena suuban ee Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed. Waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda iyo hareeraheeda in ayna soo gaarsiiyaan xogta halka ay ku sugan yihiin dhalinta ku kaca falalka noocan oo kale ah si aan u wada badbaadino mustaqbalka jiilka soo koraya. muwaadin haddii aad la kulanto falal ammaanka iyo dhaqanka suuban liddi ku ah nagala soo xiriir xafiiska gurmadka ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed.